بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. soo dhawaada dhammaan ardayda sharafta leh gruubkan cusub ee la aasaasay kusoo dhawaada. caawa waxaan bilaabaynaa insha allah sidaan horay aan usoo sheegnay programkeena cusbaa oo aan ugu talagalnay inaan maadada businesska fasalkeeda form 4 dugsiga sare aan ku daraasayno. horta kow inta aanan markaad bilaabin daraasadeena waxaan rabaa in aan u sameeyo hordhac iyo bandhig. waxaan ugu magac daray hordhac waxay tahay inaan ka bixiyo fasalkan cusub iyo ujeedada laga leeyahay iyo siyaabaha loo daraasayn doono iyo inta uu soconayo iyo waxa lagu baranayo. intaas ayaan rabaa inaan uga hadlo. dhanka kaletana bandhig waxaa soo bandhigi doonaa maadada aan qaadanayno iyo siyaabaha aan u qaadanayno iyo jadwalka aan ku qaadan doono. waxaan intaas ku dari doonaa gruubku waa gruub hadda la sameeyey, weli dad badan kuma jiraan. waxaan idinka rajeynaa insha allah in dhammaan ardayda aad soo wada aruurisaan. midda kaleeto xigto soo aruurinta kadib gruubku in aada iyo aad uu noqdo gruub waxbarasho oo aan xadkiisa laga bixin, mar walbana lasoo dhawaado. hordhac waxaan hordhac u sameyneynaa koorsadeen cusub. laba bandhig waxaa bandhig u sameyneynaa ayadana sidaas oo kaleeta maadada aan qaadanayno ayaan bandhig u sameyneynaa. okay, intaas kadib ujeedada horta aan ka leenahay gruubkan waa maxay, sababta loo sameynayo gruubkan iyo fasalkan maxay tahay. ujeedada ugu weyn oo loo sameynayo gruubkan waxay tahay kow in waa waxbarasho, inaan wax ku barano weliba wax kasta kuma baranayna waxaan ku baranayna si gaara maadada businesska fasalka form 4ka ayaan ku baran doonaa. warkaas waxaa dhimo ujeedada ugu koowaad maxay tahay kow waxaan ku baran doonaa maadada businesska. labo ujeedada labaad loo asaas waxay tahay kala faa'iidaysi, in lagu kala faa'iidaysto oo xitaa anaga mahane dadka dambe ee naga sii dambeeyo ay ka faa'iidaystaan hadday fursad u helaan iyo dadyo kaleeto wixii kaleeto af soomaali ku hadlo. ujeedada saddexaad oo asaasna waxay tahay wacyigelin, in aan isku wacyigelino, isku baraarujino wixii dhexdeena ka qaldan iyo wixii toosanba aan isku dhiirigelino. wixii toosan aan isku dhiirigelino, wixii qaldanna aan iska reebno. horta ujeedada saddexdaas ugu weyn. ujeedadeena ugu weyn waxay tahay kow inaan business ku barano, waa ujeedka loo sameeyo gruubkan. in lagu kala faa'iidaysto, qof waxay ka qaldan yihiin loo saco, iyo wacyigelin in laisku wacyigeliyo. ujeedooyinkan intaas waa si kooban. sidaas oo kaleeto waxaa noogu xigi doona habraaca daraasadda. horta qaabkee loo sameynayaa daraasadda, yaa soo diyaarinaya cashirka, see loo diyaarinayaa, ardaydu see ku dhegeysanayaan. horta marka ugu horeysay qaar ka mid ardayda ayaa waxay sameeyeen soo jeedin oo ay dhaheen macalimo barnaamijkaas in maadada businesska maadaama hadda aad naga tagtay laakiin siyaabo kaleeto lagu kala faa'iidaysan kara ayaa jiro oo internetka ayaa dhooban. qof walba internet oo helaa ugu yaraan taleefonna uu helaa uu ka isticmaalo. marka inaad nooga faa'iidayso ayaan jecelnay. fikraddii haddaan fiiriyey waxay noqotay fikrad macquula maasha allah oo aada iyo aad lasoo dhaweeyo. oo wixii wanaagsan haddii lagu sheegay inaad soo dhaweyso oo dhiirigelisa laga rabaa. haddii wuxuu yihiin inaad ka reebtid oo ka celisid. markii fikraddii lii sheegay waa soo dhaweeyey. sida ugu fiican ee la sameyn karan waxay tahay in internetka iyadoo lagu kala faa'iidaysanayo cashiradii la duubo. aniga marka hore aniga ayaa cashirka soo duubayo, jabtar ayaan usoo sameynaya, usoo diyaarinaya, usoo qoraala, waan idiisoo dira. marka idiisoo diro adinka ayaa la baxaayo soo koobiyeysan doono. marka hore cashirka diyaarintiisa anaa laga rabaa anaa soo diyaarinaa. waa qodobka labaade. isbuucii waxaan ku dadaalaynaa insha allah 2 habeen inaan ka qaado. isbuuc 7 habeen waaye
toddoba habeen ma wada gaarno waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay iska dhalinyare in fursado iyo waxyaabo kaleeto ay ka daba ordayaan in laba habeen laga faa'iidaysto ugu yaraan laba habeen in laga faa'iidaysto usbuuci laba habeen aan soo dhigno cashirka aan soo duubo marka saddexaadna waxay tahay in cashirka tusaale ahaan caawa kaleeto haddii cashirka la qaadanayo in maalin ka hor aan cashirkii la soo wadaago si aad usoo daabacataan adinkiina oo aad isku sii diyaar garaysaan oo aad xilligeedan aad u diyaar garoodaan waa mid ah hawraha daraasadu waxay tahay qaabkee loo samayn doono yaa mas-uuliyaddeeda qaadan kow cashirkana soo diyaarinayo adinka idin soo dira adinkana warqadihiina soo daabacanaysiin markaad soo daabacataan ana cashirka waa soo duubayaa soo duuban ayaad dhegaysanaysaan okay intee laga dhegaysanaa marka waxaan sameeyey kanaal youtube ah oo aan ugu talagalay adinka bis inaan wax idinkugu dhigo halkan maado bis oo wax kaleetan aysan weelin hadduu ilaa yaraado ma aqaan mustaqbalka dambe siday noqon doonto laakiin kanaalkan hadda waxaa ugu talagalay waxay tahay in aan maadadan aan ku dhigno oo aan ku daraaseyno kanaalka markii aan maadada soo geliyo adinkana waad ka daawanaysaan cashirkaaga iyo kanaalkii sida rabta ugu soo ceeshanaysid habraac horta waa kaas in aniga soo diyaariyo adiga ii soo diro adinka aad daabacataan marka aad daabacataan ana cashirka aan soo duubo oo internetka aan soo geliyo sidaas aad ku dhegaysataan waa mid shuruudaha ardayga laga rabo marka ardayda aad iyo aad horta aad idinkaga mahad celinayaa ka qayb qaadashadiina waxaan aad u jecelahay horta maadaama barnaamijku yahay barnaamij kala faa'iidaysiya mas-uuliyadda ugu badan waxay fuuleysaa dhankaaga inkastoo aniga dhankayga inay mas-uuliyad kala fuuleyso laakiin mas-uuliyad ayaa adiga si gaar ahaaneed kuu fuuleysa mas-uuliyadda horta waxay tahay kow waxaa laga rabaa cashirka inaad daabacato warqadan waxay kula joogaysaa inta aad form 4 ka dhamaynaysid laga yaabe mustaqbalka dambe inay ku anfacdaa laga yaabaa kow inaad cashirkaaga aad soo daabacato anigu waxaan idin waa buugii businesska form 4 ka ku qaadanayseen inaad soo daabacato cashirkaaga labo buug nood waxyaaba badan waxaa jira nooda oo afka sheegayno afka daldalaayo inaad sidaas oo kaleeta aad qorato buug yaroo noodana u baahan tahay labo inaad ka shaqeyso assignment ama su-aalaha haddii lagu diro maxaa tusaale ahaan xisaabaad oo kaleeta meelaha qaar ku jiro haddii xisaabtaas aan sameyno in aad adigan aad ka shaqeyso oo soo sameyso waa mid kaleeto qodobka xiga waxay tahay inaad go-aan adag aad yeelato oo wuxuu waa internet laga yaabo qofku inaad ka caajisto bani aadana la iska yahay laga yaabo meesha fasalka caadiga la xaadirayo maaha laga yaabo asxaabta qaar inay ku jiitaan laga yaabee in waxyaaba badan isugu kaa darsamaan laakiin waxaa laga rabaa inaad go-aan adag yeelato go-aankaasna uu kuu noqdo maadada waa bilaabayna ilaa iyo dhammaadkana insha allah waa ka faa'iidaysanaynaa anagoona waxna aanan ka khasaarin fursadda waa ka faa'iidaysanayna inaad sidaas tirahay inaad go-aan adag aada meel dhigato oo cajis dhanna meel iska dhigto in aad mas-uuliyad buuxda iska saarto mas-uuliyad buuxa inaad iska saarto barnaamijka isku xilqaanto waxaan tusaale ahaan xilligii daraasadda la qaadanayo inaad qaado habeen kasto waqti waxaa jira aan u qoondeynay habeen kasta maan labada habeen isbuuci aan qaadanayno waqti waxaa jira aan u qoondeynay waqtigaas inaad dhaafin hadhow gadaal ka dhigaysana cajis ay haayo waxaas inaad iska dhaftid waqtigaagii iyo waxaaga aad isku aadisato qodobka xiga oo ugu dambeeya inaad ixtiraamto ardada iyo dadka gurubka kugula jira dhammaantooda ardadaada waa walaalaha fasallo kala duwana kala dhigataan xaafado kala duwana kasoo kala tagtaan maskax kala duwaneeda ku jirto inaa ixtiraam u muujiso qofkii hadduu su-aal soo weydiiyo su-aasha aad taqaanid si ixtiraam looga jawaab haddii aadan uga jawaabi karin ka aamus dhegeyso laga yaabo adigana in fursadda qof kaleeto uu ka faa'iideeyey qof hadduu lacala su-aal soo weydiiyo inaanan wixii laga dhigin wax iska dabiyac oo intaas isku toosto intaan waa shuruudaha laga raba ardayga inaad cashirkaaga soo daabacato buug yar oo noodana aad diyaarsato inaad ka shaqeyso su-aalaha lagu faro haddii lagu diro su-aalo inaad go-aan adag aada meel dhigato inaad mas-uuliyad buuxda iska saarto waxa aad qabanayno iyo inaad ixtiraam u muujiso ardada iyo dadka kugula jiro gruubka okay marka intaas aan isku soo dardarno dardaaran yaroo kooban aan idisiina horta anoo nafsadeedaba ka bilaabayo
wax walba oo la qabanayo waxay leeyihiin caqabado iyo dhibaatooyin fara badan ayay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa hadda markaad bilowdo shaygan aan wada bilowno labadeennaba anagoo wada jira in culays badan uu kaa soo wajaho. Laga yaabo markuu macalinku hortaagan yahay si toos wax kugu sharxaayo iyo markii meeshaan wax kaaga sharxaayo aad u kala duwan yihiin. Marka waxaa laga yaabaa inaadan culays badan ku dareento dadaal. Waxa aad qabanayso horta marka hore ha kaa noqdaan kuwo dhab ah, ka run sheeg waxa aad qabanayso, ka run sheeg ku dadaal, ka run sheeg oo qof ay ka go'an yihiin noqo. Marka labaad dadaal samee. Simbiri muhiimaddu waxay tahay oo hadda waxaa loo sameynayaa ardayda qaarkeed usoo fikireen waxay tahay in la sameeyo horumarin nafsadaada inaad horumarisid. Hadda almost haddii inta bishaan July lagu jiro oo fasaxa lagu sii jiro haddii aan 2 chapter aan sii qaadano oo business haddaan qaadano ja adoo wax badan ku fargariyey oo culeyskii form 4 kusoo qayb ay kaa hartay ayaa tagay waa dan adiga ku anfacayso waay. Marka wixii dhalinyaranimo ama iska kaftana ama iska oo wixii intaan ka horreeya meel iska dhiga. Waxaan idin rajeynaa inaad dhexda aad dhuuqsataan sanad cusub wacyi cusub aa idin bilaabmaayo. Sanadkan waa sanadkiina ugu dambeeyay iskuulka. Fursado badan ayaa iskiin bedelayo sida shaqo dhaqmaysay markaad aad form 3 and form 2 form markaa aad ma dhaqmaysid maanta mas'uuliyad weyn ku saaran. Iskuul dhan laga yaabo inuu kale ku fiirsanayo sida u dhaqmaysid. Laga yaabo iskuul dhan inuu kaliya horjooga aad u tahay oo jaamacad isku diyaarinay sidaas oo kale mustaqbalkaagii ayaa isbedel waqti dhow ku imaana. Waana isku diyaar garaysaa marka. Qodobka saddexaad waxay tahay rabbi inaad tala saarato. Rabbi tala saarashadiisu waa muhiim. Mar walbana waa la isku booriyaa. Haddaad wax yar qabanaysid rabbigaa tala saaro kan ugu yar baa noqda. Intaas waa dardaaran yar oo kooban. Maanta waxaa noqonaysaa form 4 form 4 haddaad noqotaan waa fasalka hogaamiyayaal aad tihiin. Form 4 haddaad ka baxdaan waxaa ku jirtaan qaanada aqoon-yahanada ummadda ku jirtiin. Dhaqankaaga toosi wixii kaa halaabo horey kaaga halaabo iska dhaaf haddaa la joogaa. Dhaqankaaga toosi dabeecadaada toosi dhaqankaaga toosi baarinimada waalidkaaga toosi adiga nafsadaada uun waxaad samaynaysa waxaa u fiirisaa war maxaa caqabadayga imaan karo, maxaa ka faa'iida, maxaa culayska imaan karo, maxaa natiija waxaas inaad ka fikirtaa lagaa rabo. Okay, intaas waa dardaaran yar oo kooban. Marka qorshaha xiisadda halkii xiisad oo aan qaadanayno insha Allah waxay noqon doontaa 30 daqiiqo haddii ugu badato. Waa haddii ay ugu badato waa 30 daqiiqo kan badan doonto. Therefore marka laba habeen haddii laba habeen oo 30 daqiiqo hal saacadood waa isbuuc hal saac ayay noo noqon. Isbuuc dhan haddii 30 daqiiqo xiisadeed halkii xiisad oo qaadanayno 30 daqiiqo kama badan doonto. Inay ka yartaan u badi wayna ka yaraan doontaa. Taas waa mid. Haddii marka laba habeen isbuuc aan qaadano halkii xiisadna 30 daqiiqo tahay ka soo qaad 30 haddii la isku daray misay noqon marka 60 waa hal saac. Isbuucii dhan meeqa saacadood ka kooban yahay 24 saacadood oo min 7 waa fahmi kartaan adinkaba. Hal saacadood bis uga faa'iidayso waa wax weyn waa wax sahal lagu heli karo ma. Dhankaas markaa ka soo gudbo ardaydu waxaad ka sharxanaysaa warqadaada. warqadaada ayaa ka sharxanaya oo sharaxaada ka sameynaya. Anigu waa caadi cashirka sidaan oo kaleeto hadda aan meeshaan muuqaalkan aan u sharxayo kaleeto ayaa u sharxaysaa. Muuqaalkan sida uu sharxayo ka ardaydu warqadahooda ayay ka sharxanayaan sidaan oo kaleeto ayaa u sharxi doona. Kadibna aad warqadaada ka sharxanay. Wixii su'aalaha qabta haddii su'aalo ay qabta ay jiraan groupka ayaa igula soo wadaagaysaan. Groupka igu soo weydii markaan faraaq helo marka ugu horeysa haddaan online anaan kaaga soo jawaabayo haddaan online ahayn marka ugu horeysa aan soo galo anaan kaaga soo jawaabi doono. Fiiro gaara marka. Fiirada gaarka waxay tahay chapterada laba isugu jiraan. Ciwaanada horta waxaan baran doonaa insha Allah. Businesskan waa very muhiim aad u muhiim u yahay nolosheena wuxuu qayb muhiim ah ugu jiraa. Marka casharada qaadan laba nooc isugu jiraan. Kuwana waa kuwa theory oo in la fahmo u baahan. Qaybna waa qayb xisaab noqon doonto oo ayadana xisaabta oo in la xisaabiyo u baahan. Cutubiyada qaarkood marka haddii ay fahan ay yihiin waa caadi waa simple fahankeena ku wadayna. Laakiin haddii ay xisaab ay timaado
wixii xisaab ay ku jirto sabuurad ayaan u isticmaali doonaa oo hadda sida aan kan u isticmaalayno kaleeto ayaan sabuurad muuqaal ah idinkugu samayn doonaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo waa laba mid noqon ama waa theory ama waa xisaab hadduu theory yahay oo fahan uu yahay meeshan inta caadi ku wada sharxanayna laakiin hadduu xisaab uu yahayna xisaabtaas oo wada xisaabinayna sabuuradaa la tagi doona taas bandhiga bug intaas hordhacayna uga baxna marka hadda waxaan imaanaynaa marka bandhiga buuggeena oo aan qaadan doono businesska ah form 4ka ah wuxuu ka kooban yahay 5 chapter ama 5 cutub ayuu ka kooban yahay buuggan waa 5 cutub sidiisana 5 cusub waa 5 cutub la qaadan doonaa waana 5 cutub oo muhiim ah aniga qaabkaan idinkula wadaagi doono waa qaab lasoo khulaasaynayo khulaasadiisu weliba khulaaso macquul ay tahay cashirkaas oo dhammaystiran ayaa idiin soo diraya haddii kaa daawacanayo inta aniga midkaan aan sharxanayn anaa soo yaryareystay laakiin adiga sharxaadaadu waa haysataa meeshaasaad kala soconay chapter koowaad waxaa lagu magacaaba financial statement waxaa loo yaqaanaa bandhigyada maaliyadeed xisaabin midkaan xisaaba ku jirto waa waxyaabo la xisaabinayo faa'iido khasaaro ganacsiyada jiro waxyaabahay faa'iideen waxyaabahay khasaareen hanti waxay haystaan sanadka soo socda maxay saadaalinayaan waxyaabahaas ayaa ku xisaabinaa financial statement waa bandhig maaliyadeed chapterka labaad waxaa ku baran doonaa money and banking money waa lacag banking waa bangiyada iyo lacagaha sida u shaqeeyaan banki sida u shaqeeya lacagaha sida loo shaqeeya sida u shaqeeyaan sida loo soo saaraa lacagaha yaa mas-uulka lacagta bangiyada yaa mas-uulka waan ku baran doonaa qaybta saddexaadna waxaan ku baran doonaa public finance waa qayb dowladda la xiriirto dakhliga dowladda soo galo anaga dhanka ganacsi aan ka fiirinaynaa dakhliga dowladda soo galo intuu soo galaa intuu ka soo galaa ila dowladda lacag ma hesho horta mise lacag ma hesho haddii lacag gasho intay lacagtu ka soo gashaa haddii lacag soo gashana intay ku bixisaa waxyaabahaas aan ku baran doonaa chapterka afraad waxaa loo yaqaanaa inflation sicir barar waxaa laga yaabaa sicir barar wax badan inaa maqasho sicir barar waxaa loo yaqaanaa wuxuu yahay iyo qeybihiisa iyo waxaas dhan chapterkiisa ku baran doonaa chapterka ugu dambeeyo waa international trade ganacsiga caalamiga international trade waa ganacsiga caalamiga alaab Dubai laga soo raro inta la keenay wax badan oo aragnay Shiinaha alaab laga doonayo waa maqashay waxyaabaha dhan waa marka waa international trade ganacsiga caalamiga ka mid tahay wax la dhoofiyo wax la soo dhoofiyo wax la iska dhoofiyo wax la soo dhoofsado sida loo xisaabiyo waxyaabahaas oo arki doona insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa hordhaci iyo tusmadii buugga haddii ay wax su'aalo jiraan waad weydiin kartaan guriga iga soo weydiiya ama meeshaan iga soo weydiiya aad iyo aad ayaa umahadsantihiin inta aanan ka bixin kanaalka cusub oo youtube-ka oo aan soo gelinayo subscribe saara si hadhow mar allaala wax soo gasho ee hore idinkaga soo dhacda hadinkan fariinta hore idinkaga soo gaar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu